baabuurtii oo dhan baa naga gashay saan wada arkaysaan hadda waa inaan tiimka u tago aan caawiyo waa ku khasbanahay wad cabdiqani baydhabo waan rabaa inaan arko baydhabo waxaan leeyahay baydhabo ni salaami baydhabo salaami aniga waa laga halaabay war sida ha ka joojin waa baxnay ninkan dhalinyaradaana waxa uu ka mid yahay dhalinyarada xeebtani maanta ku ciyaaraysa dhalinyarada saaxiibadii waxa noo sheegeen in looga yaqaano goobtani gowdka waqtigu waa goor dambe oo galabnimo waxaanaanu si diyaarinay aniga iyo koox kale safaraan ku tegayno magaalo dalxiiseed qiyaastii u jirta 68 kilomitir magaalada muqdisho hal saac oo aan ku jirnay safarkayaga wax kasta waxay isu bedeleen si lama filaan ah waxaana ay tani sababtay inaan sii wadi kari weyno safarkayaga baabuurtii oo dhan baa naga gashay saan wada arkaysaan hadda waa inaan tiimka u tago aan caawiyo waa ku khasbanahay wad cabdiqani wad haye ka saacado badan oo ay nagu qaadatay in baabuurta aan wadanno aanu ka saarno goobtani oo leh ciid iyo bacaad aad u badan nooma ay suurtogelin balse ugu dambayn waxaanu ku guulaysanay aniga iyo asxaabtii ila socotay inaannu ka saarno gaadiidkaanu wadannay bacaadka dibna ka helno waddada saxda ah ee deegaankaan u soconno 2 saacadood baan ku jirnay halkan waa ciidda aad arkaysaan waa saxaro aad u adag haddii aad gasho mararka qaar waxay kuu qaadanaysaa inaad gaariga nacdood ka tagto hadda maybe 1 hour ama 2 hour aan ku jirnay maxaa dhacday meeshaan yaa la dhihin bacadkii Dubai hal ma laha meeshaan anu waxaan u bixin lahaa New Dubai way halkan rafaad badan kadib iyo muxuu ahaa wareer badan kadib alxamdulillah waa ka soo baxnaa hadda wili dhaxaasi soconaa hadda waa habeenimo saacada fiiri waxa rakeeyay waa isugaa waa 2 saac maxaa u taqaaniin kartaa 8 habeenimo oo naqaana marka 8 habeenimo ama 2 saac baan halkan joognaa inaan hadda warshiq joognay joognay laakiin khadara dhacday asxaabtu inta badan marka muuqaalada la duubayo waxay arkaan inta quruxda badan laakiin mararka qaar in dhibaatadan iyo buuqan in waxa la soo maro waa inay nala ogaadaan wallahi haddana markii la duubo editka laga maraayo shaqada laga maraayo هشير جرينا وينه بس شير جريا له عرق جية لكن نقدر نقدر جية هذا ما سنتين السفر كله أو بلامي وقت هبين معه أي واحد وقارني قابتي السفر كيجوها ورشيخ برعد الدجان كقرحون مقالة ده أي أنا كوب بلابرني معنا عصب كدب سفر در أوقاتي ساعة بدن دجان كحبتي دج مدني أي عهد كسوت شيدانية لأن يرب بدلنا وحي حبتي نوت هاي قاب شقو oo ay ka helaan nolol maalmoodkooda halkanina waa xeebtii warsheekh waxaanu saaranahay mid ka mid ah laashashka ee halkan yaala sabab arkaysaan xeebta badi waxa yaala laashash kala duwan kuwaasi oo malayga ama kalluunka halkan laga soo saaro ama laga soo jilaabo u iibgeeya magaalada muqdisho dhalinyarta halkan ka ganacsataa waxa ay noo sheegeen in shaqooyinka ugu badan dhalinyartu halkan ay ka qabataa ay tahay inay soo qabtaan malayga ama soo jilaabtaan isla markaasina muqdisho ay geeyaan qaybaha soo harayna degmadani warsheekh lagu iibiyo amaba la geeyo hoteelada kala duwan ee wax lagu cuno waxaana ay taasi ku tusaysaa in malayga halkan lagu gadaa uu yahay runtii wax soo saar iyo shaqo abuurka dhalinyarada halkan ku nool ayuub ahaan xeebtan waxay ka mid tahay xeebihii ugu quruxda badnaa ee aan arko intii aan marayay deegaanada Soomaalida runtii biyaheeda oo aad u qabow ayaan aad u jeclaaday dalxiisayaasha ku sugan xeebtani ayaa fariintani la wadaagay qurba joogta warsheekh degmadan waa degmada warsheekh waa magaalo xeebeed aad u qabow jawigeeda aad u neecaw badan yahay waa haddana magaalo ku wacan dalxiiska iyo soo dhaweynta iyo martisoorka magaalada waxaa aad looga yaqaanaa badi Soomaalida ee u yaqaanaan warsheekh markii la yiraahdo magaalo diimeed waa magaalo diimeed loo dalxiis tago diin laga barto haddana dhalinyarada magaalada yihiin dhalinyaro aad u firfircoon furfuran soo dhaweyn wacan ayagana aas leedahay matalow kuwan halkee ku barteen waxaas oo dhan waxaa keenaysaa isleeyahay diinta halkan laga barto saa daraadeed waxaan leeyahay dadka soo dalxiis tagayo soo dhawaadaano gacmo furan ku soo dhawaadaano khaasatan dadka reer warsheekh ee qurba joogta ah waa inay maalgeliyaan hoteello badan ay ka sameeyaan si deegaanka dalxiiskiisa u wacnaado lagu soo dhiirado dadka hadda jecel dad ka sii fara badan ay jeclaadaano magaalada kaliya aan looga imaanin dal iyo dibad looga yimaado insha Allah taala saasaan rajaynaynaa magacaaga Nuur Maxamuud Yuusuf nuur saad noo sheegtay halkan aad degan tahay
waa warsheekh bal deegaanka warsheekh oo loo soo dalxiis tago iyo xeebta looga wara wallaahi horta waa deegaan khayraysan oo ilaahay ugu deeqay kalluun beero magaalo xeebeedna waaye bulshada inta qaybaheeda kala duwan oo soo dalxiis tagaan maalmaha jimcaha oo nasiinaday leeyihiin inta badan waay maalintii kuugu xiisaha badnayd intii aad joogtay warsheekh iyo xeebtan iyo deegaankan ma nala wadaagi kartaa wallaahi toogin aad jeclahay mar dalxiisar badan imaadeen waa marka dalxiisar badan yimaadeen farxad baad dareennaa waayo dad baa noo imaanayo soo dhaweyn anagana soo dhaweyska ku fiicannahay xilligaas ayay ahayd dadweynaha raba inay u soo dalxiis tagaan warsheekh maxaad fariintaad u diraysaa maxay tahay wallaahi waa soo dhaweehaynaa gacmo furan ku soo dhaweehaynaa qalbi furan kalluun fresh oo badda dalay soo baxshay diyaar soo dhaweehaynaa marka asxaabta waxaad leedahay warsheekh ku soo dhawaada dhulkan dhulkiina waaye magaalo xeebeedkiina waaye waan soo dhaweehaynaa dhammaan dhalinyarada warsheekh welcome soo dhawaada aad u maasad ninkan dhallinyaradaana waxa uu ka mid yahay dhallinyarada xeebtani maanta ku ciyaaraysa dhallinyarada saaxiibadii waxay noo sheegeen in looga yaqaano goobtani gowdka warsheekh ama gowdka dhanka balooniga haye gowdka soo dhawow bal waxaad nooga warbixisaa deegaankan quruxda badan ee kubadda ku ciyaaraysaan waa dhawaa walaalka meeshaan xeebtaan xeeb iska degan waaye balooni oo lagu dheelaa inkastoo anaga xaggaas oo koroomanka ku dheelina cagagaarka xeebtaana ku haysana xeebtaana ku dheelina iyo bacadaha ku dheelina leebis inkastoo xamarina koronta oo kabo iyo ku dheelina halkaan hadda kabo inaan ku baranaa rajeeyna xaggaas hataa tagno jaamacada xaggaas hadaa u aadno kaleente inaa kabaha aan koon la qabsano oo ku dheeli karna inaan tagnaa rabnaa marka hadda xeebaha ku dheelina laakiin hadda bacada inaan u bedelina rabnaa marka hay dadka raba inay u soo dalxiis tagaan warsheekh maxaad leedahay والله dalxiis hadii loo meesha iska degantahay sida xamro kale inta ma taag dhan uu gelimaa meesha qofna wax ku dhimayso meeshan ala iskale allahay kiyaa ku tahay kimciisa martiya ku tahay oo lagu soo dhaweynaa si fiican lagu soo dhaweynaa wax dhan lagu dhimaa qof wax ku leeyahay ma jirto aad baa ku salaaminaa aad ku faraxsan anagu inaan la kulanno gowdkii warsheekh soo dhow istaagay xabiib oo isaguna ka mid ah dhalinyarada maanta hadda ku dalxiisaya حبيب ورير بيدبا ولا رير مقدشو si fiican ugu sheekaysanay afmayga laftiisa si fiican baan u aqaanaa xabiib faylata maasha Allah ayuu faylaa safarku dalxiisku naxgalni warsheekh qoyni eedalin baasha way ka raaxaysaday magaalo oo jubshay dalxiisada hadda ay arafad meel ra'iis amniga xalay ilaa ma baxdareen lama saacado waxdareen xeelad dambe xagalni magaalada amni iyo jabi degan meelo meel ra'iis condition meel kala lin kalaan marka ma bala faday intii heer mas'aro Soomaalidan inta uu qoyna warsheekh كسوبن فيديو كسوبن قروحي عالم عالم كمركز سنة مركون ما يكوي dalxiisyada caalamiga ah ya kooya markuu ayubna kama sinyi ma ba ku qayb qaaday inta caalamka inteena fayla oo leen dalxiis kor aad dadka tusto absolutely dadka oo active ku social media markii la fiiri umada influencer-kii wadanka wal fayla xeebtun geek uu video ka duumay caalamkana marka fiirsan ajnabi ah ka dhiiride si ko inta waqti ku yeelan faylana ma ba kin qadaray tiidee kala anoo wareegas ku ogaa faydo inta aad seeto horse biliga seeto ana wiligeed ma tigin hadda aan socdaa waana imanaya waana jecelahay afmaamaya ka saas baydhabo waan rabaa inaan arko bardaaga baydhabo waxaan baydhabo salaam baydhabo salaam baydhabo salaam هذا مسجد. هرت وحويان أنت وتوالي دونتها. لكن وح وجهها أصحابته الوشية لو ما حملك. أنا أكتس فري ستان أصورنا أيوة وتكون حملك. مركبة وراك سقوني. مركبة وفامية. أصحاب جامعة ده. مركب رير بيدو سودوية نيكا وضيقة وحنا رجينا يا مقالة أنتي ذو قرحان. inagu waxna raana hadda baydhabo tigin Soomaaliya muxuu ay quruxdiida iyo jannada ma baarig waan ku soo dhaw baydhabo salaam reer baydhabo salaam reer baydhabo salaam waxa uu maadina ku dalxiis dalkayga hooyo aad u qurux badan magaalada kale waa shaqada caajis iskaga jira faasita baro shaqada caajis kadib waxa aan ku qaadanay maanta maalin jimcaha tahay in soo dalxiisnaa in asxaabteyda dalxiiska ku guda jirnaa aan ku faraxsanahay inaan ka soo muuqdo YouTube-kaaga hadda waxaa noo soo gabagaboobay safarkii aan ku joognay magaalada ama deegaanka warsheekh tiimkiisa oo arkaysan baabuurtooda maalka wada jooga halkan dhawaan ayaa waxaa laga samayn doonaa New Muqdisho xaafad dhan ama magaalo dhan oo New Muqdisho laga samayn doonaa mustaqbalka dhow meesha bacaadkaada wada arkaysaa waxa laga yaabaa mustaqbalka dhow inay noqoto
magaalo dhan oo deeri ku nool yihiin dunida magaalo walba cid baa asaastay oo la odhan jiray hadda waxaan ka mid noqon doonaa dadka runtii la odhan doono ayuubuu joogay intii aan la asaasin new muqdisho 24 saacadood oo aan joogay Warshiiq ayuub ahaan waxay ii ahayd inaan arko deegaan cajiib ah oo leh xeeb qurxoon iyadoo dadweynaha ku dhaqan deegaanka Warshiiq iyo deegaanada u dhow intii aan maraynay aan kala kulannay soo dhaweyn aad u weyn ku xidhno Ayuub Show